بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن اتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر اتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. سورة اللباد وسورة البقرة مدنية وقرآن كي مدينة كسود دقي سورة الظهر عليه الصلاة والسلام دور تفسير باجراء ama tilmaamood qur-aanka laakiin soo degay hijradii nabiga ka hor 13 sano waxaa la yidhaahdaa maki qur-aanka soo degay intuu nabigu ka qaxay uu ka hijrooday maka ee uu madiina tegayna madani baa la yidhaahdaa hadduu doono makabaha ku soo degeen waa tafsiirkaad mooda inuu ugu dhodhowya weel haddaan saa la odhan dee qur-aanku labadaa meelaan ahayn baaba in badanoo ka midii ay ku soo degtay nabigoo socdaala ama gobolo kale maraya daabiciisa iyo muuqaalka uu leeyahay ayaa kala duwan labadaa qaybood qur-aanka ka midii midiba sibuu u hadlaa mid fasaaxadda ayaa maaragtay aada u cusleeya iyo aayaadka koobkoobane ka warramaya icjaaska xagga luqada midna dhinaca axkaamta iyo shuruucda ayuu aada uga warramaa waaye suuratulbaqara oo suuraddii labaada sida aad arkayso waxa weeye suuradda ugu dheer qur-aanka kariimka waxyaaba khusuusiyaad ay leedaha suuradda u gaara waa suuradda u dheer marka la eego qur-aanka kariimka ah 114kiisa suuradood waa suuradda ugu axkaam badan axkaamta ay xambaarsantay aad bay u badantay suurad la midii ma jirto fusdaadul qur-aan baa la ydhaha taambuuga qur-aanku isugu soo hoosgalaya weye suuratul baqara qofka barta iyada iyo axkaamta ay ka warramaysa iyo tafsiirkeeda ee aada u dhugta ee sharaxeeda akhriya wax badan baa cilmiga fiqiga u dhaadhacaya waayo baab walba asal bay ku leedahay saynu tilmaami doono aayadda u fadli badan baa ku jirta qur-aanka waa aayadee aayatul kursiy aayadda u dheer baa ku jirta oo ah aayatudayn sidaynu xagga dambe ku arki doono suuraddu waxyaabaha miisaadkaas ayay leedahay xagga fadligeeda axaadiid dhowra baa ku soo arooray oo saxiixa waxaa ka mid a xadiidka saxiixa nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam yu'taa bilqur'aani wa ahlih aladiina kaanuu yacmaluuna bih taqtumuhu suuratu lbaqarati wa aalu cimraan
تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام قرآن كريم كها أيا إيمان أيام مالنت قيامها إلها وكينية إيه الكيسي كو عمل فلجري الحديث كو لا أما هي لا قرآن كي إيه الكيسي كو عمل فلجري وأهله الذين كانوا يعملون به كوي براني يا كوي أخري يا intoo dhammi way soo hoosgal laakiin arrinka lafdhabarta uu ka dhigayna waa kuwii ku camal fali jiray sidaa daraadeed ba quraanku ay tahay inaynu hadafkeenu ahaado intaynu rumayno inaynu baranno lafdigiisa iyo macnihiisaba ku cibaadaysano isku dawayno xafidna intaynu kari karno kuna camal fallo عمل فلكاسا قرآنك أهل كيس لو نوضع ساو حديث شيء أهل القرآن أهل الله وخاصته سيدي أهل كل قرية يقف وحوي إنه تكو عمل فلايه القرآن كل دقنوية بلشدة نوانو دقنوية مدحدة نوانو دقنوية ودادة نوانو دقنوية قفك آخر السنة يطالبك سيدا سانا وإنه بركة سكوية لينا قرآنك سيدا سينو كن فاهمينه سورة آيات سورة آخر كذا آخري واتقوا الله ويعلمكم الله إلهي كعب صدق القرآن كعمل فلا سيا علمي يسويها شار مركا دون يسين دوّد حفظك إياه 10 كا تذكر حيل هذا 10 هلا يطفى إلا وجاي يجيب بطيء حفظ حماضة يديه 10 كلا طفى وعب صدق عليه وح هو جامين يسوي قرآنك labada suuradood ee la yiraahdo suuratul baqara iyo al umraan waxay u doodayaan qofkii quraanka ehelka waxa ee ku amal fali jiray ayaa ay u doodayaan labada suuradood ilaahay kalaamkiisu cid u doodana waxa la rajaynayaa in la furdaamiyo lana sii daayo xal iyo maaro loo helo nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiis kale waxa uu ku yiri oo isaguna saxiix oo muslim warinayo لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فارقرين حوالا كدقنا إلا الحوال لقمنا عباديستو عملنا كما صعده قرآننا لقما أخريه صلاتنا لقما تكاد قف لنتاي ومسلمة لقوا أسطرع وحلقة سوغانا ما تشراء دا إساقي بابا وحبها ينبه عمل كيسي حاشدي سيبال الله marka xabaalo kala gurigeenu yuu noqonin xabaal baan waxa lagu wadinay quraanka ku akhriya weey shaytaanku ka cararaabu nabigu kaleey salaatu wasalaam guriga lagu akhriyo suuratul baqara hadii suuratul baqara iyo aayatul kursi baa ku jirto xadiidka iyadana ku soo arooreen guriga lagu akhriyo uu ka baxsadaa shaytaanku uu ka cararaa marka guriga haduu bilaa yahay quraan وقبور أكو كلا دوين وكان رنشي بامرسنا سي بو يرى دلالاليا لامبدا كبخيا كان إذا ولا جحانو باسارا لكن تاسمي كوير كلا دوين هنا لكن حاجة معنوياتك لبا حبالات باسور كودي وياش سيدا حديث كان النبي كوري عليه الصلاة والسلام مركا وهلكا أي هدية شر أتيات مقشو أروسكا مركا وريركو ديغو أو كلا آيات كما قال يساع علماء مركا وليمة العرس إياك هالليان حفلة أروسكية مركا كهالليان بوحي هذا هلقو أخرية سورة البقرة هلكا أي كان وهلكا قريقان عصب maaragtay degayn shaydaanka laga naaro suuradan xadiidka saxiixa ay ku soo arooreen marka si caama de qofku inuu ku akhriyo caruurtiisu ku akhriyo reerkiisu ku akhriyo shaydaan la shaydaanka hadda iska didin weydo adiga iyo islaantiiba madaxa isugu kiin dhufan doonaada wada fadhiyi maysa iyo ehelki xaafadaha qaar wadiga arkado qayla ay ka baxayso oo la kala labqabaynayo baqaraana haysanin oo ku akhriya ayaan hays marka intuu dhax fadhiistay buu dhimbiila ku sii deynaya واي arrimaha xaafada lagu bustaynaya khayr kale ayay kamid shaydaanka laga naarayo حديث كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحوري اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة وسورة سورة البقرة إلى آخرها قاد شدد وبركة ويا دنيا آخرة معناها آخر الشدد ذي حفتين تهدي كنت ذلك كده
ka tegideeduna waa qoomamo iyo muruga buu nabigu calayhi salaatu wasalaam hadduu qofku iska daayo oo danayn waayo suuradda iyo dee suuradaha kaleba qur-aanka murugay ku noqonaysa sixirlayaashuna ma karaan suuradda buruudkeedaa ka weyn sixirlaha oo dee sixirlihii asalkiisaba waa shaydaan hagoogan shayaatiinul insiga unbuu ka mid yahay sixirluhu asalkeedaba falka uu fulinayo wuxuu fuliyaa markuu shaydaanka soo maray iskaashi sameeyaan shaydaanka waxyaabo u laqimaa kufriyaad iyo shirkiyaad iyo khuraafaad markuu casharkaa qaatee uu dabiqo qofkan sixirlahahay ayuu waxyaabo la tiiriyaa shaydaanku oo waxyaabo la qabtaa marka labadooda iskaashanayo dee suuraddu kol hadday shaydaankii weynaaba ilaahay uu ku buufiyey sixirlihii ay isku ladhnaayeen ee ku lifaaqnaana isaguna uu raacaya marka suuraddu dee axaadiid badan baa kusoo aroora qaarkoodna saxiix yihiin qaarkoodna daciif yihiin waxaa ka mid a xadiidkii kale isaguna tilmaamayay qur-aankiibaa imanaya iyadoo labada suuradood ay hogaaminayaanoo ay u eg yihiin laba daruurood oo waaweyn oo heegooyinahoo kale suuratulbaqara waxaa loogu magacaabay magacan qisada ka waramaysa saca iyo dhacdada reer banu israa'iil ka dhex dhacday oo aynu halkeeda ugu tegi doonno insha allahu ayaa lagu dhex sheegay marka asuura allatii yudkar fiiha albaqara waa suuradda lagu sheegay saca qisada saca oo tilmaamaysa awoodaha ilaahay iyo siduu wax u soo nooleeyo iyo cidda markaa mujrimka ah siduu u fashiliyo iyo waxyaabaha ay qisadaas tusinaysa halkeeda aynu ku arki doonaa hadiyo jeerna suuradaha meelo ku sugan oo dhexdeeda ku jira baa loogu magac daraa inta badan waaya sida aynu horeba u soo sheegnay suuraddu iyadoo dheer dee suuradihii madaniga ahaana ka mid a oo xataa waxyaabaha mumayasaadka ama gaarka u ah aynu hore u soo sheegnay waxaa ka mid ahaa baynu aayadda u dheer iyo aayadda u fadli badan iyo aayaddii u dambaysay qur-aanka wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah aayaddaasoo xagga dambe ku jirta inay ahayd baan filaya ayaa iyaduna ku jirta oo markii ay soo degtay nebigu 9 habeen uu sii noola calayhi salaatu wasalaam axkaamta suuraddani ay koobsanaysaa waa nidaamka samaawiga ilaahay dadkan u dhigayo sida caqiidada cibaadaadka nidaamka dhaqaalaha akhlaaqda arrimaha guurka iyo furiinka iyo dalaaqa waxaan leeyahay ciddada waxay suuradda marka u horreeyaba ilaahay uu ku bilaabay dadku noocyada ay yihiin inuu inoo tasniifiyo inoo tilmaamo dadku sida ay u kala duwan yihiin iyo adduunkan marka ay joogaan inaanay wadamo iyo xuduud iyo jinsiyada iyo qabaa'il iyo waxa ahayne laakiin mu'min iyo gaala ay yihiin ayaa marka u horreeyaba ilaahay uu ku bilaabaya dadka muslimiintiina tilmaanta ilaahay inay qaataan iyo tasniifta ayaa uu barayaa rabbi suuraddu marka intaa laga gudbo waxa ay soo horraysiinaysaa bani aadamkan asalkiisii halkuu ku lug lahaa iyo basharka halkuu ilaahay ka abuuray aadam iyo xaawo iyo halkaas iyo dagaalka bani aadamka iyo abaaliista ka dhex oogan inuu abtirsaday oo waalidkeennii u horreeyay uu ku soo bilaabay ayaa markiiba ilaahay u xusi doonaa si aynu uga gaashaamno oo aynaan u aaminin cadowga shaydaanka suuradda waxa aad arki doontaa in ku dhow 3 meelood oo meel ayaa ilaahay uu kaga warramayaa nimanka khatarta badan iyo abeesada suntu ay ka soo kabacaysa ee dhex jiifa bartamaha caalamka islaamka ee la yidhaahdo al-israa'iiliyuun nimanka reer banu israa'iil la yidhaahdo al-yahuud ayaa qur-aanku u dhigaya waa qisada ugu badan xagga soo noqnoqodka qisadaas taasu in fara badan thuluth in ku dhow ayaa ilaahay uu kaga warrami doonaa iyadoo uu ka bilaabaya yaa bani israa'iila adkuruu nicmatii allatii ancamtu calaykum ilaa laga gaadho waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaatin faatamahun waxyaabahay suuraddu aada uga warramaysa waxaa ka mid a axkaamta soomka xajka jihaadka nidaamka qoyska waxay aada uga warramaysaa dhinacyo kala duwan oo ka mid yahay dhinaca dhaqaaluhuna ribadaad arki doontaa markuu ilaahay saxo siyaasadda iyo hogaaminta iyo awoodda dadka muslimiinta iyo qoyskooda iyo qudhooda ayuu haddana ka warramayaa nidaamkooda dhaqaale inuu saxnaado dee aayaadka ribada ka hadlaya u dambeeya iyo amaahda iyo iibka iyo ayaynu arki doonaa insha allah ugu dambayn qaybaha u dambeeya
addoonku inkastaba ha socda waa kii ilaahay xaggiisa u caraaba inkastaba ha soo warwareegee ilaahay unbuu ishortaagi noocuu doonayaba ha ahaadee kol haddii alla hortiisu ay tahay meel lama huraanoo kollayba la tegayo laabudda an yarjica ashaksu wayatuub ila allahi tacaala waa ka rabbi markaa faraya dadka mu'miniinta ah inay ducaystaan oo ilaahooda ay baryaan towbad iyo tadaruc la yimaadaan bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam miim allahu aclamu bimuraadihi bidalik ilaahay baa garanaya erayga waxa ula jeedo hore inuu soo xusnay inaan waxba la isku hawlin waxaanu fasirin nabigu calayhi salaatu wasalaam minhu aayaatun muxkamaat hunna ummul kitaab wa ukharu mutashaabihaat hore inuu soo xusnay qur-aanka mutashaabiha ah macnahooda ilaahay uu garanaya erayadaas inay ka mid yihiin waataynu xalayta soo tilmaamaynay iyo kollayba in ay u yimaadeen halkan erayadaasi in uu ilaahay ku muujiyo icjaasnimada qur-aanka iyo inaan cidila iman karaynin oo erayadanoo luqa alcarabiya dee xarfaheedii ka kooban inaanay mar hadday fasiri kari waayeen basharku lagama yaabo inay isagoo kale la yimaadaan sidaa darteed mucjisnimada qur-aanka inay erayadani tusinayaan daraaddeed ayaa inta faraha badan marka erayadaa suuradda ilaahay uu ku bilaabo wuxuu ku xigsiiyaa qur-aanka oo uu ka faalloonayo sida aayadaha ku xigaba aad arki doonto ilaahay wuxuu yidhi daalika alkitaab kitaabka qur-aanka ah laa rayba fiihi shaki kuma sugna hudan lilmuttaqiin hanuunna wuxuu u yahay dadka ilaahay ka cabsanaya aladiina kuwa ilaahay ka cabsanaya yu'minuuna bilghayb waxay rumaynayaan waxa maqan wayuqiimuuna asalaa salaadana way ku xaragoodaan oo way qurxiyaan wa mima rasaqnaahum yunfiquun wixii aanu ku raashinnay ee aanu siinayna waxbay ka bixiyaan wa mima rasaqnaahum wixii aanu ku arsaaqnay yunfiquuna waxbay ka bixiyaan waaladiina kuwii weeye yu'minuuna rumaynayay bimaa unsila ilayka shayga lagu soo dejiyey oo kitaabkana oo qur-aankana oo waxyigaabay rumeeyaan wamaa unsila min qablik kutubtii la soo dejiyey nebi maxamed oo adiga hortaa ee rususha hore lagu soo dejiyeyna way rumeeyaan wa bilaakhira aakhirana hum yuuqinuun way ku qanacsan yihiin oo kama shakisana oo qalbigooda rumaynta aakhire ay degtay ulaa'ika kuwa tilmaamaha leh calaa hudan hanuun bay ku fadhiyaan oo ay irkadeen oo ay ku sugan yihiin oo ay calfadeen hanuunkaasoo min rabbihim ilaahooda xaggiisa ka yimi wa ulaa'ika hum lmuflixuun kuwaasi way liibaaneen ragga horu maray ee dhaadanaya waa kuwa daalika alkitaab ismu ishaarahaas waxa uu tilmaamayaa saa taqaano marka wax dhow la tilmaamaya daa baa laydhaa shay dhexdhexaada marka la tilmaamayana daaka baa laydhaa wax dheer oo durugsan marka la tilmaamayana daalika baa laydhaa daa xarfu khitaab wallaamu lilbucdi daa ismu lishaara wallaamu lilbucdi walkaafu xarfu lkhitaab marka macnaheedu waxa weeye kolkaa lasii wadwado iyadoo kitaabka ilaahay uu ka warramayaa kan bilaabmayaba uu yahay haddana ismu ishaarahan baciidka ah daalika alkitaab kitaabkaas waxa weeye sarrayn iyo korayn macnawiya kitaabkan aan wax la midihi jirin oo cid kale ay calfan karaysa heli karayso kitaabka qaaliga ah ee sarreeya ee xurmada iyo ixtiraamka iyo ehel inaa u noqotaan idinka mudan shaki ma leh waxaan shaki lahayn inuu ilaahay xaggiisa ka yimi waxaan shaki lahayn inuu xaq yahay waxaan shaki lahayn kalaamkii alla inuu yahay laa rayba fiihi hadda qaar shakiya way jiraan laakiin asalkeedaba qofka wixiisu haddaanu ahayn wax lagu xisaabtami karo wax la tiriyana maaha ka shakiyey shakigiisu wax la tirin kara maaha hanuun buu u yahay dadka ilaahay ka cabsanaya dee aan ilaahay ka cabsanayni asalkeedaba xaggiisaba ma eegaba mana calfada kamana caba khayrkiisa marka ka taqwada lahunbaa hanuunka ka hela insaankuna iskiisaba ama aadamuhuna hanuunka aad buu ugu baahan yahay dee hanuunka waxa ka soo horjeedana waa halow dadka ilaahay ka cabsaday tilmaamay kuwaasi sidii aynu suuratulfaatixaba ku soo maraynay hanuunka iyo jidka toosan cidda haysa tilmaamay leeyihin tilmaamahaas ayaa mar walba qur-aanku u xusaa qoladay yihiin iyo dalkay joogaan iyo qarnigay yihiin iyo maya laakiin muwaasafaadka qur-aanku inta faraha badan tilmaamuhu xusaa ta dadka lagu kala saaraya lagu qiimaynayaa tilmaamahaas
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والإحلاس فعد له الإحلاس فعد له أي إلهي أكليستي أكتيس كواسا أدوميسا بل أنت تلمامود إليهين مركا هروا متقين مركا هروا مركا كوحكتوا مؤمنين مركا كلا وحويان sidaada aayadaba ilaahay uu tilmaamay hum yuqinuun yaqiin bay leeyihiin tilmaamaha gaarka ah weeye yaani amalkan ay sameeyaan amalkan natiijadaas ka soo baxaysa amaladan markay sameeyaan waxa ka soo baxaya taqwo iyo iimaan iyo yaqiin iyo hanuun baa ka soo baxaya muuminiintu waa kuwa waaye asalkeedaba ummaduna labada qaybood way gaal iyo islaam ilaahay baa jecel dadka islaamka iyo muuminiinta oo waxa weeye cidii adoonnimadiisa aqbashay way mutaysteen in lagu aftaxo oo lagu bilaabo suuratul faatixana iyaga lagu bilaabay suuratul baqarana ilaahay iyagu ku bilaabay waxa weeyaan dadka adoomaha dhabta weey alladina yu'minuna bil ghaib marka ghaibku waa wixii maqan wixii aanay indhahoodu arkayn ana wuxuu ilaahay ku amaanay shay aanay arkayn bay rumaysayn ilaahay ma arkaan way rumaysayn ilaahay de lan taraani buu adduunyada muuminiintu kuma arkayaan jannada ku arkayaan way rumaysayn malaa'igtiisay rumaysayn wuxuu quraanku sheegay jinku ka mid yahay rumaysayn qiyaamaha rumaysayn jannay rumaysayn naar bay rumaysayn siday ugu qanacsan yihiin lahum quwwa mukhayyala waxa ay leeyihiin awood ay ku sawiran karaan shayga looga waramayo iyo nawciyada uu yahay ay ku qancayaan dabeetana wixii kale laakiin dadka kala dawaadiga arkayo waxa ay u diidayeen ilaahay ee aakhira ay u diidayeen day taafsiibay leey ma arkabade waxay ku leeyeen waxaanu aragno indhaha iyaga yar taabtaan mooyaane wax kale ma rumaysanayna halkaas lagu kala tagay wixii ilaahay uu siiyay wax ka bixiyaan oo sidaas ay tahay wax bixintu had iyo jeer wax qaaliya weeye waxaad ka arkaysaa ilaahay baa isu idaafeeyay wuxuu waxaan siiyay macna qofku waa inuu gartaa wixii loo dhiibay ee amaanada loogu dhiibay inuu mustaqlaf buu ku yahay waxbuu ka bixiyaa muuminiintu way ku amaanan yihiin iimaankooduna waa dhammaystiran yahay si ilaahay u rumeeyaan waxa weeye ilaahay ma kala saarayaan kutubtiisa rusushiisa laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli rusushiisa iyo kutubtiisa wada qaadanayaan cid kale oo iimaanka laga helaa ma jiro waxa kale adduunyadan ilaada waxbaanu rumaynaa iimaankooda waxa uu laangara iyo naafa iyo majiraan u noqday waxaanu ahayn mid shaamila baanu ahayn qaar waxay leeyihiin kutubta bar baanu rumaynay rususha bar baanu rumaynay laakiin rumayntii dhammayska tirnayd baa laga waayay ulaa'ika calaa hudan min rabbihim lafdu calaa waa kuwa culimada balaaqadu yidhaahda waxaa laga fahmi karaa halkan nacnaa nimankaasi qatamakanu cala alhuda hanuunka sida ay ugu xasileen u biyadhigay hanuunka sida u cagadhigeen calaa hudan waxay ka dhigayn gaadiid ay fuushan yihiin oo kaloo hanuun ka dhigayn wa min annaasi man yacbudu allaha calaa xarfin soomahayn qaar ilaahay daraf ka caabudayaa jiroo lugna kula jira islaamka lugna xumaanta kale kula jiroo labada wuxuu calaa jambiya kuwan maya waa calaa hudan markuu qofku muwaasafaadkan iyo tilmaamahan iyo qaanacadan iyo iimaankan yeesho hanuunka wuu ku cagadhigtay oo waa ku degay oo sida gaadiidku u fuushan yahay calaa hudan min rabbihim hanuun ilaahay bixiya walaaika humul muflixuun ta loo socdaana waa taa waxaynu camal falaynaynu u ordaynaa aynu u bixinayno bikulli nafsin wa nafiis wax kasta oo qaaliya iyo wax kasta oo agteena qiimo kulaba waxa weeye inaynu helo falaaxa iyo guusha ilaahay ilaa adigan arkayo tan aynu ku noolahay maaha meel falaax iyo liibaani ay taala maaha bixeeduba waa wax yaroo nisbi ah intaas waa sifaadkii mu'miniinta weeye sifaadka mu'miniinta ilaahay uu ku tilmaamay ee ka soocaysa ummadaha kale waa ahlu sacaada weeye kuwani dadkii hore maray waa taas weeye ummadda qaybtii labaad baa ilaahay uu tilmaamayaa iyagu isku qola waa isku daraf waa reero gaaleed weeye kuwii kufaarta ahaa laakiin iyaga laftigoodii baa laba u qaybsan gaaladii oo qaarna wixii ay qabeen kufriga ahaa way cadaysteen qowl iyo ficilba way ku cadaysteen
qaybina way qarsadeen waxay u qarsanayaan iyo sababta ay u qarsanayaan noocay doonaysaba ahaad laakiin gaalnimay qarsadeen kuwii markaa gaalnimada cadaystay baa ilaahay uu soo horreysiyey ilaahay wuxuu yidhi inna aladiina kafaruu kuwii gaaloobay sawaa'un calayhim waxa isku mid ah aandartahum u digtayaa haddaad u digto am lam tundirhum iyo haddii aanad u digin laa yu'minuuna ma rumaynayaan haddaad u digtiyo haddaanad u digin midna ma anfacayso khatama allaahu ilaahay wuu dhababay waa daboolay calaa quluubihim qalbiyaashooda wuu malaasay nag buu ka dhigay wa calaa samcihim maqalkoodiina waa daboolay wa calaa absaarihim qishaawa wa calaa absaarihim indhahoodana waxaa saaran maxay qishaawatun dabool gawe walahum cadaabun cadiim cadaab weynna way leeyihin ficilada noocaasa natiijada ka dhalanaysa waxa weeye walahum cadaabun cadiim cadaab weyn bay leeyihin oo kulul ilaahay u diyaariyey ina aladiina kafaruu qoladay doonayaan ha ahaadeen waa kuwa diiday wixii lagu islaami laha waa kuwa la yimi wixii lagu gaaloobayay hadday meeshay joogaan iyo wakhtigay joogaan mid kastaba haado kaafir kafara macnaheedu wuxuu satara qofka wax qariyaa la yidhaahdaa waxbuu asturo kafara baa la yidhaha marka waxaa lagu macnayn karaa kanina waxa weeyaan waa xaqdabool weeye waxaan qarsoomayn buu isku dayayaa inuu daboolo ilaahay xaqiisii iyo xaqii isagu u lahaa iyo xaqii ummadda iyo cid walba macnaha awalulxuquuq waa xaqullah subxaanahu wa tacaala cadaaladda u horraysee la doonayaa waxa weeye in ilaahay xaqiisa la siiyo cidda tawxiidka ka tagtay asalkeedaba cadaalad ma hayso lagama rajaynayo inuu cadaalad sameeyo qofku hadduu xaqii ilaahay meel kaga dhaco cadaaladda lagu sheegaa dee asalkeedii baa go-anoo ka maqan waayo dulmigii u weynaa buu sameeyeyba marka kafaruu sataruu waxay astureen shay aan qarsoomayn oo xaqi ah ayay astureen marka haddaba kuwa xaq daboolka ah magacay doonayaan ha lahaadeen qaar waxa ay yuhuudday ku abtirsadaan qaar nasaaraday ku abtirsadaan qaar mushrikiin baa laydhaa qaar majuus baa laydhaa qaar waxbaba ma caabudaanoo malaaxidaa laydhaa kafaruu sawaaun calayhim aandartahum am lam tundirhum laa yuuminuun ilaahay baa dee ka warramayoo xaaladoodu haddii loo digiyo haddaan loo digin waa isku mid labada jeerba waxa aayadda dambena ay muujinaysaa iskeedaba qofku intanuu daifka joogo ikhtiyaar buu leeyahay oo isagaa kala dooranaya wanaagga iyo xumaanta markuu xumaanta doorto macsiyada iyo dembiga uu doorto dhibaataduu leeyahay waxa weye dhib kaleu usii gudbiyaa dhibkii kaleu ka dhaxlay waxa weeye khatama allahu calaa quluubihim wa calaa samcihim wa calaa absaarihim qishaawa falamaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay leexdeen baa ilaahayna uu duway doorashadii xumaanta ay doorteen iyo gaalnimada waxay keentay in qalbigii xidhmay oo indhihii xidhmeen oo dhagihii xidhmeen marka cadaabkaa kulul baana ayay dhaxal u yeeshay indhahan had iyo jeer iyo maqalkan qur-aanku uu ka warramayaa waxa weeyaan waa maqalkii iyo indhihii quluubta ee xaqa uu ku arki lahaa kuna maqli lahaa kaas weeye kuwan waa laga yaabaa inay telefoonno dhaadheerna leeyihiin fiidiyoyo dhaadheerna ay leeyihiinoo meel shisho wax ka arkayaan oo kabaradooda meel satellite-ka ay ku fiirinayaan oo il dheer bay noo soo waarideen iyo dheg dheer way jirtaa taas laakiin maca daalik laa tanfac fa innaha laa tacmal absaar walaakin tacmal quluubu allatii fi suduur halkanaa xidhnay halkaasaa dab noqotay wa calaa absaarihim qishaawa walahum cadaabun cadiim kuwaa intaasaynu kaga gudubnay arrinkoodii saasuu ku biyo shubtay qayb kaloo gaalada ka mid a ayaa rabbi uu ka warramayaa waa nimanka loo yaqaano almunaafiquun suuraddu markii ay soo degaysayna madiine ayay ku badnaayeen munaafiquna sidiisaba waxa weeye man yudhiru khilaafa maa yubdin waa mid qarsanaya wuxuu muujisanayaa waxaan ahayn wuxuu muujisanayaa wuxuu qarsanayaa waxaan ahayn yudhiru alkhayr wa yubdinu shar wanaag buu muujisanayaa iyo iimaan iyo daacadnimo beliya baasna way ku helan yihiin waxa laabta u jiifa ayaa aada u weyn
nifaaquna sidiisaba waa qofka oo shakhsiyadiisu ay lunto qofka muuminka ahi waxa uu leeyahay الصبر في مواجهة الأعداء والصمود على الحق قفك مؤمن كاي حق إنه حجسته هباكو كل العاده أي أود ليه عدة ديدنا إنه واجهه أود ليه يصبر على الحق ويصمد على الحق ويصبر على الأعداء للأعداء حقنا وكصبر يا عدو واجهات دي سنة ومعركتين ديار بويه munaafiqu labadaas aanu karayn xaqii uu ku yeeriyo ku dhawaaqay marka lagu qabsado iska tooraya markii xaqa uu qabsado cidii ku soo doonatay inuu waajiho oo runta uu sheego ku dhintana ma karayo baa naga daabu leey xijin kari maynaa wana lagu haystaabe dadka iyaga aan ku darmanay marka isagoo ku dhawaaqay iimaankii oo ashahaatay ayaa wixii ku yimaadee duufaana iyo dabayl ah sida waraaqdu kolba dhan u ciiraya xagan uu ka soo daahiraya oo xagan uu ka soo daahiraya dawaad arki doontaa waxa ilaahay uu markuu rabbi u dhigdhigay xumaanta ay leeyihiin uu ka waramay inta sifa ay ilaahay uu ku xusay waad arki doontaa waaye ومن الناس dadka waxa kamida buu ilaahay yiri man yaqulu amanna billah qaarana ilaahay rumaynay wa bil yawmil aakhir maalinka qiyaamahana rumaynay وما هم بمؤمنين من أهبوا إلهي لكوا مؤمنين إلهي آخرين الرميين يقول شاكته هدنا إيمان ماله أفلا إلى هذا ما إيمانك أفلا إلى هذا ما محاد بيت الله يخادعون الله إلهي بقيامين يعني وحيس كدين إلهي إنك هوست سهل والذين آمروا يددك مؤمنين تاني خياميان بيسكدين وما يخدعون حتى من خيامينيان إلا أنفسهم نفتوذا مويان وما يشعرون من قرنيان لابك إيا ورنك أي ردينيان إياكو كسور نقندونا حمانتي سميان إياكو كدعدون في قلوبهم مرض قلبي قوذا عذر باتشيفة في قلوبهم مرض قلبي قوذا عذر باتشيفة نفاق لا يلعظوا إيا حنون إيا كفر إيا شك فزادهم الله ألا وحو أبيريي أو أكرديي مرضا عذر كلا وين markay maradka iyagu waariteen ay doorteen mid kala ilaahay ugu biiriyay waa macsiyadu dhibaatada ay leedahay in midba mid ay ku dhiibto walahum cadaabun aliim cadaab kulul baylay bima kaanu yakdibun beenta ay xaqa beeniyeen daraadeed beeninta ay xaqa beeniyeen ee ay diideen daraadeed cadaabkaas aanu meel dhigay ilaahay talow dhaqamadooda iyo tilmaamooda lagu garan karaa waa noocee bal u fiirso wayda qiila lahum marka lagu iraado la tufsidu fil ard dulka ha xumaynina marka la iraado dulka ha kharibina war dul biisnimada iska daaya qaalu waxay oranayaan inma nahnu muslihuna anagu waxaan nahay dadka wax hagaajiya horumariya inma nahnu muslihun anagu waxaan ku horumarinaya وإسرائيلنا إلهي وحول ألا سوتشيت سدوا برارو قداديهم إنهم يجوا المفسدون يجا كلي قد بعض البيس برهتي دقن كالليهين حمانته يجا لماذا يقصنايا هم المفسدون وحوا خربوا ويجا ومنافق ولكن لا يشعرون اسمه وابيل قروح سنت وإذا قيل لهم مركا لقول هذا منافقين آمنوا رماية حق كما آمن الناس سي أصحابته رميان تدكو سيدو رمي معنى أصحابت قالوا وحيولنا أن نؤمن ميان رمينا كما آمن السفهاء dadka caqliga gaaban ee maaragtay indhow garadka iyo ana qoonta lahayn sidee u rumeeyeen oo kale miyaan u rumaynaynaa de kuwa la midnayna dabaqada saraan nahayna weey Allah hooyaay buu lahayd innahum kuwa munaafiqiintu hum sufaha iyaga ah kuwa hooseeya oo caqli gaaban oo liita walakin la yaclamuun ma garanayaan haddana way isla haagsiin wayda laqul ladina aamanu dadka muuminiinta kolkay la kulmaan wayda laqul ladina aamanu dadka muuminiinta kolkay la kulmaan qaalu waxay oranayaan aamanna rumaynay saasay leey afka ka oranayaan wala khalaw ila wayda khalaw ila shayaatiinihim kolkay shaytaamadoodii u noqdaan waaweynaa xumaanta aabaha ugu ahaa iyo wadaadadoodii qaalu waxay leeyeen inna ma'akum idin kaanu idin wehelinaa
liiskiina nagu qora xertiina aanu ka mid nahay oo maxaa hataa wixii idinka yeersiiyey innamaa naxnu mustahzi'uun waanu ku jeesjeesayn allahu yastahzi'u bihim ilaahay baa ku istihzoonaya waxay xaq u yeesheen marinaya wayamuduhum wuxuu u kordhinayaa fii duqyaanihim xadgudubkooda yacmahuuna iyaga oo ku indhala wayamuduhum wuxuu u biirinayaa oo u badinayaa u kordhinayaa fii duqyaanihim xadgudubka iyo kibirka ay ku dhex jiraan ayuu sii kordhinayaa oo way sii badsanayaan yacmahuuna iyaga oo ku indhala ulaa'ika kuwa noocaasi kuwaa tegay way dhaqaajiyeene aladiina kuwii weeye ishtaraw dalaalata bilhudaa ishtaraw waxay iibsadeen addalaalata shaygii hallowga ahaa bilhudaa hanuun bay ku iibsadeen macnaha waxay qaateen hallow hanuunkiina way ka tegeen famaa rabixat may faa'iidin tijaaratuhum ganacsigoodaasi tijaaratuhum baac mushtarigoodaasi wax faa'iidaa muu helin wamaa kaanuu muhtadiin manay hanuunin tilmaamaha iyo sawirka aad ka bixin karta iyo cidday u egyihiinna weli way soo socdaan marka aad u fiirsato ilaa halkan waxa ilaahay uu ku sheegay nimanka munaafiqiinta 10 sifo 10 tilmaamood asalkeedaba ninka ilaahay uu doono inuu wax ka sheego kabtima yaala ama ninku doono inuu ilaahay daba galo yufadhihu fi walaw fi qa'ri daari fi qa'ri daari guriga dhexdiisaba ha fadhiye qofka isaga waa fadeexadun baa xaasil ah mid gaal ahaaba ilaahay uu نما يتون خلف هذا فلا يلا هاو عيبي ولا تضيع كل حلاف مهين هماز مشاء بالنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنيم وحاصل صفابة إلى وسطبري كونا وأنا يسكح حقين ونواصل سوكله وحيل هاو كشت البابان يا خيام يا مكر يا سفيه نمو يا تشاس والفساد في الأرض كيف السهادين يان والجهل أقوان ضر ضلال يهلو تذبذب إن أنا مبدأ لهين السخرية بالمؤمنين يعني المؤمنين تكون ديليان marka asalkeedaba aayada hore waxay tilmaantay iimaanku inaanu ahayn wax afka laga sheegto laakiin waa shay qalbiga ku sugma xubnahana laga sameeyo asalkeedaba qofku haduu ilaahay diido wuxuu isu dhigay sidii wax khiyaamaynayo ka hor imanayo kale waxa kale aynu arkaynaa aayada ilaahay wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inma nahnu muslihun aragtida sideedaba qofka aan iimaanka lahayn ama aan ilaahay ka tala qaadanayn waxa xunba u wanaagsan waxa xunbu wax ku miisaana shayga munkarka macruuf ah waxa macruufkiina munkar buu yahay isku qolamayhin hadaa maanta oo dhan wada hadlaysaan isku luqad ba ahaateene isfahmi maysaan laana adna islaaxa waxbaad u taqaana macruufkana waxbaad u taqaana isla waxbuu yahay balamka gaalada eegaya warbixinooda al-du'afaa al-khawana dadka kuwa ugu daciifsan ugu khaayinsan ayaa agtooda ugu siyaasisan oo ugu fariidsan oo ugu xariifsan al-aqwiyaa al-umana dadka awooda iyo aqoonta leh kuwaasina agtooda irhaab bay ka yihiin mar hadduu qofku diin leeyahay oo ilaah leeyahay oo aakhira uu ka fikirayo agtiisa kaasi waxa weeye fi caalam al-hajar waxa uu ku sugan yahay caalamkii laga tagay hore uu ku oranaya marka la yiraahdo waa maxay sidanna wuxuu ku leeyahay inama nahnu muslihun adduunyada siday ku horumaraysa iyo caalamiyadu waa cayn karo sidana adduunyada lagu horumaraa saasa lagu baraara in dadka ilaa cirbaha la rogo la wada laayo dabeedna inta soo hadha kolba dhankii la doono loo jeediyo war caalamka fasaadin meena sidana islaaxa ku leeyahay waa taa aynu maanta arkayno adduunyada xagga waalida adduunyada u socotaa caalamiyada lagu sheegayay iyo waxaan aad maqlayso in fara badan al-cawlama baa la yiraahdaa imika waxa u socotaa xagga waalida iyo xagga ifsaadka qofka ka hor yimaada waxa la islaaxiyo diin iyo ilaahay iyo arrimaha sheegana waxa la leeyahay isaguna waxa uu isagaaba mufsida baa la oranayaa ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun marka la yiraahdo sida dadku u rumeeya dadkaas waa asxaabta sufaha bay u yaqaanaan bal ka waran qarnigii quruunta oo dhan ugu fadli badnaa bay sufaha ku sheegeen ma harbe ku jiidaya adigoo islaamkaaga ku baaqayo diintaada ku baaqayo ilaahaaga ilaha la caabudo rasuulkaaga ku saliyay sallallahu alayhi wasallam ayaa asxaabtii sida loo galay adigana maxaa lagu magac bixinaya de hala yaabino ha oranin
dee war dadkii waabuu iga batay adduunyadiiba waxaanaan maaragta xaggan kale u badatay ha odhanoo ha fitnoobine la qabsa asxaabtii baa lagu yihi alaa innahum humu sufahaa walaakin laa yaclamuun humu sufaha munaafiqa astaantiisu waxa weeye mabda inaanu lahayn albaaba kuma soo xidhmaba meeshuu doonaba uu ka dusi karaa haddaad waxar yar eryato muska hadday kusoo hagaagta way ka dusaysa meel walba way meelinama celinaysa waa sida jiirkaoo kale waa qadiyadda ay u yaqaanaan baanu odhan karnaa akhiiran siyaasadda hogaamin bay ahayd laakiin hogaaminta xunbaa magacan loo yaqaanaa odhanaya in qofku kolba cidduu la joogo uu la diin yahay ka muslimka hadduu la joogo wuxuu leeyahy inoogu dhan wax walba innaga ah ka gaalka hadduu la joogo wuxuu leeyahy sidaadaaba inoo wad marka aamanaabay munaafiqiintu odhan jireen nabiga kolkay la joogaan asxaabta kolkay la joogaan yuhuudda kolkay la joogaan qolo walba oo aamanaa waidaa khalow ilaa shayaatiinihim qaaluu innaa macakum innamaa naxnu mustahziuun laakiin qofka muuminka ahi yasbir cala alxaq xaqu ku sabrayaa meel baa loogu soo hagaagaa maalinba dhan uma kaco meel baa loogu soo hagaagaa lagu ogyahay oo uu ka run sheegayaa oo ku noolyu ku dhimanaya waidaa laqu ladiina aamanuu qaaluu aamanaa waidaa khalow ilaa shayaatiinihim qaaluu innaa macakum shayaatiin baa ilahay uu ku tilmaamay qayb bani aadamka ka mida odayaal ay u tegayeen iyo kuwo culimadooda ahaabaa shayaatiinta ilaahay uu ku xusay leannahu qofku marka uu xumaanta halka u dambaysa ka gaadho waa shaytaan shayaaiin alinsi waljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruura allahu inamaa naxnu mustahziuun istihsahoodaas waa gaar oo waa kaa bilaa diinta ah allahu yastahziu bihi makriga iyo khidaaca iyo istihsaha iyo arrimaha aayaadku ay qirayaana ilaahay inuu isagu samaynayo xusayo culamaaulcaqiida marka ay xusayaan waxay leeyihiin istihsahaasoo kale aan fiimayna laakiin wuxuu kula dhaqmayaa istihsa u qalma macnaha mid u qalma koodu dee wuxuu ahaa wax liitee laakiin istihsaha ilaahay uu ku samaynaya iyaga wax u qalmo oo iyaga ku munaasibu kula dhaqmaya maalan suuratulxadiid haddaad akhrido munaafiqiintii oo muuminiintii raacay oo qiyaamaha ilaahay uu ka warramayo nuurkii muuminiinta markii hore raacay koow markii xoogaa la socday baa iyagii nuurkii uu ka bakhtiyey markaasay leeyiin unduruuna naqtabis min nuurikum qiila rjicuu waraa'akum faltamisuu nuuran waxaa la leeyahay inuu idinka bakhtida laambadii xaggan lagama sahay qaata nuurka xaggii adduunyada laga soo siraadan jiray bal xaggaa iswiijkiisii u doona meeshii laga soo istaarayay xaggaa u kacbaa la leeyahay waa nooc istihzaa weeye marka saasaa ilaahay ugu diganaya wayamudduhum fii duqyaanihim yacmahuun waaya asalkeedaba qofku markanuu ifka joogo uu camal falayaayo tijaarad buu ku jiraayo waxqabadkanuu samaynayo aakhiro dee u dadaalayo waa tijaaradoo kale marka haddii uu qofku khayr kasbaday oo akoonkiisa khayr wanaagsan uu dhigayo tijaaradiisaasi faa'iiday leedahay in allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna ila aakhir aayat haddii uu qofkii dee soo qaadanayo badeecadda liidata iyo bagaashka uu la ordayo shaytaanku hadduu ka soo daldashana oo macaasidii xumaanta ana famaa rabixat tijaaratuhum wamaa kaanuu muhtadiin markaana wuu ku khasaaray faa'iido wuu waayay raasamaalna wuu waayay bal hadda sawirkan eeg ilaahay baa wax tilmaami yaqaan hadiyo jeerna qur-aanku tusaalayaal buu bixiyaa tusaaluhuna wuxuu ka faa'iideeyahay shaygii macnawiga ahaa ee maqaluun lagugu sheegayay baa marka tusaale lagaa siiyo muuqaal lagaaga dhigaya oo indhaha aad saaraysa wa tilka alamthaalu nadribuhaa linnaasi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun dadka aqoon-yahankii tusaalaha nuxurkiisa iyo macnihiisay fahmayaan bal munaafiqii laba tusaale ilaahay uu ka bixinayaa eeg maaluhum baa ilahay uhi tilmaantooda munaafiqiinta ka maali ladii qofkii bay la mid yihiin ama jamicii kooxi suruursatayoo istawqada naaran dab shiday dad intay surursadeen dab shiday falamaa adaa'at markii ay iftiimisay dabkii maa xawlahu jamaca wixii hareerihiisa ahaa dadkaa dabka shidanaya wixii hareerihiisa ahaa kolkuu dabkii wac intuu yidhi u iftiimiyey ee isleeyahin wallaahi diirsato oo iftiinsate ayuunbaa dahaballaahu ilaahay uu afuuf ka kaxeeyey binuurihim iftiinkoodii buu kaxeeyey wa tarakahum wuxuu kaga tegay fii dulumaatin gudcur laa yubsiruun iyagoon waxbaba arkayn tilmaantaa waad ka bixin karaysa
marka kamathali alladii waxaynu jamac ugu fasiraynaa dee halkan damba waxa kuu taalla binuurihim wa tarakahum damiir jamaca ayaa kuu yaala marka halkaas inuuna mid ahayna jamac u yahay ayaa ay kuu muujinaysa hadiya jeer markuu qofku meel qarfaa joogo hadday doonto dhaxan ah gudcurna ah waxa ugu baahi badan yahay waa dab uu ku diirsado bahalkana uu iskaga eego bahalka logeynaya iyo ka soo maaragtay xamaaranaya ee qasaskii abeesada uu iskaga eego sidaa darteed baa nebi muuse uu islaantiisii ku yidhi markay qarfada marayeen bal ina sii sugaan halkaa iftiimaysa dab inooga raadiye baahida weynu qab waaya haddaba dadkaas marka ay halkaa dabka ku shitaan ee weliba ay arkaan diirimaadka iyo iftiinka uu leeyahay baahidiisu way kasii badantahay kolkii hore shayga markaad wanaagiisa dhadhamiso wuu kasii badan yahay iyadoo ay dabkii kulaalayaana iftiinsadeen oo ay diireen ayuu mar qura madoobaaday waa ka dar si hore way ka darantay waaya munaafiqii waa noocaasoo kale oo iimaankii tawxiidkii uu kolkii hore ku dhawaaqay xoogaa iftiina baa ka yimid xoogaa nabadgelyo ah buu ku helay laakiin markii uu ka noqday gaalnimadu ay calooshiisa degtay arrinkiisii waxa uu ku dambeeyey tilmaantaa qofkaa dabku ka bakhtiyo oo kale macnaha biriqdii kolkii hore u baxday ee uu xoogaa iftiinah iyo diirimaada ka helay ee uu ku nastee ummadda lagu soo dhex daray kolkii ay tii meesha ka baxday isagu fashilmay dee geed baa la iskaga xidho waa munaafiq watarakahum fii dulumaatin laa yusiruun summun way dhagala yihiin bukmun way aflaayiinoo xaqa kuma hadli karaan cumyun way indhalaa yihiinoo ma arki karaan xaqa natiija ka timi markaa qofka saddexdaa isku darsaday fahum laa yarjicuuna sooma noqonaya adigu hadduu dhagoole indhala oo aan dhawaaqi karayn hadduu dhaqaaqo ma filaysaa inuu dib kuu soo eegayo ama yeedh ma maqlayo warkaalay ma maqlayo ishaaradii ma arkayo waa dam wey fahum laa yarjicuun waa bilaa rajo ilaahay baa ka warramay inaan kuwaa lagu daalin tusaale weeye kaasii qaado tusaalaha labaad waxa weeye nimankan aad ku maali karaysa aw ka sayibin ama waa ka asxaabi sayib qur-aanku marar badan buu xadfaa wixii la fahmayo xagga luqada carabiga aw ka asxaabi sayib munaafiqiinta waxaad mar kale ku shabihi karaysaa qolo roob u daayo dad meel fadhiyo oo roob ku hooray oo roob weyn u daayo min asamaa roob xagga sare ka soo daaya roobku xagga sarunbuu ka soo daaya roob baa ku hooray dad meel fadhiya roobkan fiihi dulumaad gudcur buu leeyahay waracdun onkod buu leeyahay wabarqun hilaacna wuu leeyahay sida xagga dambe inoogu iman doonta sawaaciq iyo danabna wuu leeyahay roobka intaa wata dadka uu u da'ayo siday u yaabsan yihiin yajcaluuna asaabicahum farahooda waxay gelinayaan waa xubnaha hore faraha dadkaasi waxay gelinayaan fii aadaanihim dhagahay farahaasaa u gelinayaan dadka roobkaasi u hayaa min asawaaciq danabka isdabahaya ee kaga gariirinaya dhulka awgii xadara almowt geri bay ka cabsanayaan war waxaanoo danaba isweydaaranaya arbuu inagu dhacaabay leeyihin xadara almowt wallaahu muxiitun bilkaafiriin ilaahay gaalada wuu koobay yakaadu lbarqu hilaacu wuxuu u dhowaanayaa yakhdafu absaarahum inuu indhaha kala tago inuu indhaha ka leefo oo indhihii iftiinkoodii uu qaado kullamaa adaa'a lahum mar kasta oo uu iftiimiyo wac intuu idhaahdo hilaacu meeshii ka horraysa uu iftiimiyo mashaw fiihi way soconayaanoo way tallaabsanayaan bal ka yar gaadhsiiya bay odhanayaan wa idaa adlama calayhim marka uu ku madoobaado dam markuu hilaacu yidhaahdana qaamuu way istaagayaan bal xaggaynu u dhaqaaqnaa waa kaas walow shaa allaahu rabbi hadduu doonayo la dahaba wuu la tegi lahaa wuu ka qaadi lahaa bisamcihim maqalkoodan caadiga ah ee dhagaha caadiga waxay ugu maqlayaan waa absaarihim iyo araggoodan indhaha kii qulubta siduu uga qaado kana uga qaadi karaa hadduu doonayo laakiin waa la imtixaanayaa muddaa la daynaya ina allaha calaa kulli shayin qadiir wax walba ilaahay uu karaa kana waa tusaale kale tusaalahan labaad waxa weeye guuldarrada munaafiqa haysata waa tashbiih baa laydhaha tamhiiliyaho tashbiihu xaalin bixaalin weeye xaaladda ciddani ay ku sugan tahay waxaad ku shabihi karaysaa xaaladda munaafiqu ku sugan yahay waa dad roob hayo roobkani waxyaaba badanoo dadka ka cabsiiyuu leeyahay madowgiisii iyo hilaaciisii iyo onkodkiisii iyo danabkiisii intaasaa isdabahaya
dee waa dareemi karaysa adigoo meel qarfaa jooga oo intaasi isku darmatay warcaawa ma baxnaa unbuu qofku leeyahay allowna badbaadi ilaahu danabkaa naga badbaadi oo daadka naga badbaadi oo qofkii wuu cabsanayaa xaaladaas oo kale aad ku shabihi karaysaa munaafiqi waa munaafiqiyoo dhex jooga xadradii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo qur-aankii uu soo degayo ilaahay asraarta iyo quluubta ogaa ayaa aayaadkii soo dejinaya markaasaa marar badan waxaa soo degaya aayado hanjabaad badan ay ugu jirto munaafiqiinta iyo gaalada waxaa soo degaya aayaadka qaarkoodoo muwaasafaadka iyo tilmaamaha munaafiqiinta dhigdhigaya oo sharxaya sida suuratu tawba haddii aad akhrido waminhum waxaa ka mida dabeedna kuwii nooca ahaabaa meesha fadhfadhiya waaya noocaasoo kale weeye marka qur-aankii waxa ilaahay uu ku shabahay roobkii oo dee roobkuna dhulkuu nooleeyaa qur-aankuna quluubtuu nooleeyaa dadka mu'miniinta abuu nooleeyaa ee munaafiqii waxa ugu sugan gudcur buu ka faa'iiday markuu aayad beeniyada aayaadka waciidka iyo hanjabaadda iyo fadeexadda sheegaya waa onkodkan iyo danabkan ayay ka dhigan yihiin mar walba wadnaha ayaa go'aya oo mar walba waxa uu leeyahay marka aayaad ay soo degaanba hal yaraakum min axad war cidimayna arkaysaan ka baxsanna meesha maba maqlayaane qalbigoodu wuu baxsan yahay marka qur-aanku soo degay halkay asxaabtu ka dhagaysanayaan isagu wuxuu leeyahay maada qaala aanifan goor dhoweyd muxuu akhriyay ilaa wax kaloo ka fikiraya isagoo uu maqan yahay oo maqana jooga marka aayaadka waciidka iyo fadeexadii soo degay hilaaci iyo onkodkii dheh roobkiina waa qur-aankii haddana goobta iyada amniga ay ku helayaan iyo sida loo nabadgelinayo waa hilaaca marna u baxaya marna ka baktiyaya marna waa la qabanaya marna waa la iska daynaya sawirkaa iyo sawirkaasaad isu egaysiinaysa yakaadu lbarqu yakhdafu absaarahum kulamaa adaa lahum mashaw fiihi waidaa adlama calayhim qaamuu kolkuu ku madoobaadana way istaagayaan kolkuu iftiimana way dhaqaaqayaan ilaahay sidaa uu indhala-aanta quluubta ugu riday buu ugu ridi karaa in kuwan ay wax ka arkayaan iyo dhegahuna malaasmaan subxaanahu watacaala walow shaa allahu la dahaba bisamcihim wa absaarihim hadduu doonayo wuu ka kaxayn lahaa indhahan iyo maqalka siduu dee uga kaxeeyay kuwii quluubtaba kuwanna wuu ka kaxayn karaa laakiin kuwan waaba loo daayay intii muddo in allaha calaa kulli shayin qadiir marka labadaa xaalaad ku shabihi karta waa kuwa culimmadu yidhaahda culamaau tafsiir aw haadihi hiya maanicatu lkhuluw laa maanicatu ljamci macnaheedu ay uga jeedaan wuxuunay diidaysaa awdaas in labadan tusaale meesha ka wada baxaan laakiin ma diidaysa labada tusaale inay soo wada galaan oo munaafiqiintii kaana waad ku shabihi karaysaa hore tusaalaha hore tusaalahan dambena waad ku shabihi karaysaa labadaba waad isugu geyn karaysaa midna waad ku shabihi karaysaa laakiin labadaba ha ka wada saarin meesha labada tusaale le ilaahay baa wax tilmaama yaqaan waaya xaaladda munaafiqa marka aad doonaysa iyo ayaan darada haysata iyo naxdinta ilaa asalkeedaba beenaalaha khaayinka ah maakirka abaa ugu naxdin badan qofka daacadda ahi deganaashuu leeyahay iyo xasiloonan xagga qalbiga ah waad ku celcelin doontaa wixii adkaada waad soo celin insha allah haddii saaxiibada kale aad ka fahmi weydo labadaa tusaale ilahay uu ka shabah waay haddaba markuu ilaahay soo xusay ummadda qaybaheedii kala duwanaa miduu jecel iyo miduu necab yahayba baaq guud baa ilaahay dadka u jeedi wuxuu tilmaamayaa waxa ilaahay iyo addoomaha ka dhexeeya abtirsiima kama dhexayso masaalixi kama dhexayso ilaahay iyo addoomaha maxaa ka dhexeeya inay addoomma u noqdaan in ay cubuudiyada xaqiijiyaan taasaa ka dhexaysa qofkii ciddii ilaahay haddii yuhuudda la tilmaamay in la nacdalay ciddii dhaqankeeda yeelataana nacdashaasay yeelanaysa waayo marbaa iyagaba la doortay isdafaahum cala alcaalamiin marbaa iyagaba ahayn dad la doortay sidaa darteed baa xadhigga addoonka uu qabsanaya ee ilaahay uu kaga badbaadi karayo ayaa halkan uu ilaahay xuso wuxuuhi yaa ayuha nnaas dadow ucbuduu rabbakum ilaahayna caabuda alladii khalaqakum ilaahay idin abuuray waaladiina min qablikum kuwii idinka horreeyeyna ilaahay wuu abuuray idinkuu idin abuuray oo ummadihii idinka horreeyeyna ilaahay wuu abuuray lacallakum tattaquuna si aa u cabsataan cabsi baa idin helaya alla caabuda cabsida waxaa laga helaa cibaadada alleh ilaahay maxaa loo caabudayaa dee waa ka xaqan leh xaqanuu inagu leeyahy alladii jacala lakum larda waa ilaaha dhulka idinka dhigay dad yahow firaashan gogol war ilaahay dhulka wuxuu idinka dhigay gogol roog idiin fidsan weeye
wasamaa'a binaa'an samadiina mid dhisan buu ka dhigay waanzala min asamaa'i maa'an xagga korena biyuu ka soo shubay aa u baahantiinoo nolol kaleba jirinba fa akhraja bihi wuxuu ku soo saaray ilaahay biyihii min athamaraati midhahaa soo baxay oo dhan warshadaha bani aadamku ma soo saaraana ilaahay biyahaasuu ku soo saaraa risqan lakum iyadoo arsaaqadidiin ah waxaa ku nooshihiin buu hayaaba falaa tajcaluu lilaahi andaadan ilaahay ha la caabudina ilaahyaal falaa tajcaluu lilaahi isaga ha u yeelina andaadan sanamyaal liitoon waxba hayn wa antum taclamuuna idinkoo garanaya inuu cibaadada iyo ilaahnimada xaqu leeyahy kuwanina aanay waxba hayn wain kuntum fii raybin haddaa ka shakisan tihiin mimaa nasalnaa calaa cabdinaa addoonka iyaga qur-aankaanu ku soo dejinnay waa waxyigii addoommaha ilaahay ku xidhaya ee baraya xaqa ilaahay uu ku leeyahy ee cibaadadan baraya kaa haddaa ka shakisan tihiin fa'tuu keena bisuuratin min mili suurad qur-aanka oo kale ah fa'tuu keena bisuuratin keena min milihi nebiga mid la midahoo bani aadama ka keena labada macnaba wadcuu shuhadaa'akum dee goobjoogayaashiina u yeedha jin iyo insi iyo sanam wixii aan isleedihiin wuu idin taakulayn karaya qur-aan buu idinka caawin karaya aad samaynaysaan bal kuwaana u yeedha min duuni illaah in kuntum saadiqiina haddaa run sheegaysaan fain lam tafcaluu haddaydaan taa samaynin oo samayn kari weydaan taa hore u samayn kari weydaan walan tafcaluu dibna u samayn maysaan lagama yaabo haddaa iminka itaal meel idin dhigo dibna u samayn kari maysaane fattaqu naar iska ilaaliya allatii naartaasoo waquuduhaa waxa xaabada u ahay gaasta lagu horinaya iyo xaabadeedu annaasu waalxijaara annaas waa dad iyo walxijaaratu dhagaxaan uciddat lilkaafiriina gaalada ayaa loo diyaariyey uciddat lilkaafiriin gaaladaa loo diyaariyey wabashir waxaad u bushaaraysaa nebi allow aladiina aamanuu wacamilu saalixaat dadka muuminiinta camal fiican sameeya waxaad ugu bushaaraysaa maxay anna lahum inay leeyihiin jannaatin tajri min taxtiha alanhaar beero sidaa ay u qulqulayaan wabiyaal hoostooda dadkii ilaahay casuumay oo casuumadii ku raaxaysanaya jannada kullamaa rusiquu minha min amaratin mar kasta oo jannadaa midha laga siiyo oo dhallinyaradii u sahlanayd iyo malaa'igtii ay wax ka siiyaan min amaratin risqan kola kastoo midhaha arsaaqad laga siiyo qaaluu waxay leeyihiin haadaakani alladii rusiqnaa min qablu waa kii horena noo siiyey kani waa kii markii horena lagu casuumay oo maxay salow sidaa u yidhaahdeen wa utuu bihi waa la siiyey mutashaabihan isagoo isu egeeg ma kala dhaco kanaa xun iyo kanaa wanaagsan male waa wada wanaagsan yahay wuu isaga egaaday walahum fiihaa waxay ku leeyihiin muminiintu jannada aswaajun mudahara dumar la nadiifiyey oo wixii maaragtay ka iman jiray xag hore iyo xag dambeba laga nadiifiyey dabeecad xumaantii laga nadiifiyey wahum fiiha khaaliduun jannadaasay ku waarayaan muminiintu sidaasaa ilaahay wey marka saasay isugu xidhan tahayoo kolka hore waa adduunyadana la joogaa waa cibaadadii waaya waxa ku xigana abaalmarintii qaybina naarunbaa lagu abaalmarinaya qaybina janno halkan marka uu qofku dhimanayana macnaheedu inuu dhintay ma aha laakiin wuu dhaqaajiyeen wuu safrayuun qofki wama almowtu ilaa rixlatun min addaari alfaani ila addaari albaaqi hayra annaha min addaari alfaani ila addaari albaaqi geeridu waxa weeye safaruu qofku daartan laga maaragtay dhammaanaysa uu ka tago daartii baaqiga ahayd uu tegay waa safaruun ila nafti baa kusoo noqonaysa marka ilaahay caabuda ilaahay waa kaa idin yeela wuu idin abuuray ku idinka horreeyu abuuray dhulkiibuu gogol ka dhigay samadiibuu ka dhigay mid dhisan roobkiibuu soo shubay wixii afka gelinayseen buu sallaxay wixii afka gelin lahaydeen qofku kuba noolaa ayuu sallaxay markaa dabeedna ilaahay kolkuu taa sheegay awoodiisa iyo arsaaqadiisa iyo nicmadiisa kolkuu xusay oo muujinaysa oo daliilo ah inuu xaq kugu yeesho cibaado ayaa hadda wuxuu xusay intaa wax aan hayninoo haddana la caabudo falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun in badan qur-aanku tawxiidka marka uu ihbaatiyu taqriir ku sameeyay risaalada rasuulka ayuu sugaa risaaladii rasuulkana ilaahay waxa uu xusay iyo waxyigii haddii aad ka shakisantiin waxyiga suurad lamida un keena ina actayn baa u yar suuradaha suurat lbaqara cagsigeeda taasoo kale keena ma jiro
marka faatuu bisuuratin min mili waa suurad qur-aanka oo kalea layidhi haddana bicashri suwarin 10 suuradood baa leh haddana suurad keliya baa leh intiiba way keeni kari waayeen waa taxaddi baa laydhaa mucjisnimada qur-aanka xaqiijinaysa markhaatiyaashiina u yeedha oo looga jeeda musaacidiintiina haddaydaan hore u samayn walan tafcalu fain lam tafcalu walan tafcalu lam iyo lamna waa wixii hore tanuunka wadatee lan ahayna waa mustaqbalka waa samayn kari weydaan wakhtigii hore dibna u samayn maysaan naarka cabsada waxaa lagu huriyaa dad iyo dhagaxaan u yahay macnaha sanamyaashaasaa u ah sida bahashaa batroolka iyo gaasta u bushaaree awliyadii ilaahay soo kifaaxay adduunyadii ee soo samray nicmada inay helayaan iyo jannada mar kastoo la arsaaqo waxa ay yaabayaan wixii hore kii hore iyo kan isu eegaa baba kala dhaco waxa la siiyey isagoo isu eegay in fara badan qur-aanku marka aad sidaa u eegto dumarkii aad buu maaragtay ayuu xayeysiinayaa si unbay dee ragga ugu lifaaqan yihiin walahum fiiha aswaajun mudahara dumarkaas xuruciintiina way yihiin kuwii adduunyadan ka tegayna way yihiin oo kuwan adduunyada iyagoo xataa iskaba gaboobay oo habra ahaa haddana ilaahay wuxuu uhi inna anshaanahunna inshaan fajacalnaahunna abkaaran curuban atraaban dib baan u habaynayoo markaasay noqdeen kuwa wada dhallinyaro ah oo shabada ah oo raggooda jecel kuwaasaaba ka qurux badan kuwii halkaasii fadhiyay ilaahay baa saa ku abaalmarinaya wahum fiiha khaaliduun allahu subxaana wa tacaala يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات